بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة كريم وأمال آديات وخير بدن كرب جمعة بعد صلاة العصر. إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجينا يا وقتيا فائدة كجرتا iyo wanaagiisa inuu waafajiyo annagu acmaasha wanaagsan iyo khayrka sameynayna waa mid lagu gaarayo horumarka adduunyo iyo ka aakhiro. xaqiiqatan qofku sidiisaba inta uu joogo waxa fiican waqtiga inuu ka faa'iideysto. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajeynayaa inuu naga dhigo kuwii waqtiga ka faa'iideysta. waqtiguna waa saacad oo saacadii way soconaysaa maanta dhan, hal saac, laba saac, saddex saac way isku bedelaysaa. zamankuna waa sidii oo waa cimrigaagii oo socdo saacadan intay socoto. marka qof kasta waxaan u rajeynayaa inuu Ilaahay ka cabsado subhanahu wa ta'ala, iimaan iyo yaqiin uu nagu arsuqo isaga awood u leh. khusuusan dadka dhalinyarada waxaan aad ugu la talinayaa mar waliba inay ku dadaalaan cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee waxbarashada. iyada ahmiyad u leh, yacni qofku markuu yar yahay ama uu weyn yahayba waqtigiisana uu horumar kaga gaari karaa. waxbarashadu iyo aqoontu xirfad waaye. xaqiiqatan adduunyo waad yeelan kartaa, laakiin waqti bay ku dhaaf kartaa. waxaan marnaba ku dhaafaynin waxa weeye aqoonta ay xirfadda. adduunyadu haddii maanta kaa baabado waxaa laga yaabaa xirfad aadan lahayn bannaan baad ku dhacaysaa. laakiin aqoon haddii Ilaahay uu ku siiyey ood ku camal fashinna waxaad gaaraysaa horumarka la sheego. cabsida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyaabaha waxa weeye adduunkana lagu liibaan, aakhirana lagu liibaan. laakiin adduunyadu waxba ma ku qabanayso. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri: yaa ayuha alladhiina aamanuu ittaqullaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. kuwa iimaanka laga helay Allah subxaanahu wa ta'ala rumeeyayo ee mu'miniinta ahow, war Ilaahay ka baqa buu leeyahay cabsidiisa dhabta ah, ana dhimanin idinkoo muslimiin aha oo mu'miniin aha mooye. arrinkaasna muxuu ku imaan karaa? su-aashu waa taas. wuxuu ku imaan karaa horta cabsidan Ilaahay inaad macrifo u leedahay iyo garasho. cibaadada alla waxay u baahan tahay macrifadii inaad u leedahay ood baratid marka hore. haddii aadan ban shaygan cibaadada ah eed samaynaysid aqoon aadan u lahayn, waxba kuuma qabanayo samayntiisu. liannahu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari leylata albadri calaa sayri lkawaakib. ninka caalimka ah fadligiisa iyo darajada uu ka fadli badan yahay ninka caabidka ah aan cilmiga lahayn waa sida dayaxu uga fadli badan yahay xidigaha intooda kale. fadliga lagu sheegaya dayaxa waxaa weeye markaas isaga ah maaha camal ay qabteen oo uu ka camal badsaday. markii dayaxa uu soo baxo iftiinkiisu xidigaha way qarsoomayaan, leanna way ka yaryaryihiin. marka fadliga uu leeyahay qofkan yacni caalimkii waa sidaasoo kale oo qofkan caabidka ee cibaadaysanaya hadduunan cibaadadan cilmi u lahayn waxaa laga yaabaa waqtiyo badan inay khaladaad badan u ka dhaco, iyadoo ibnu aadamku ay wada gafaan. laakiin haddana waxaad u cilmi leedahay waxaadan u cilmi lahayn way kala wanaag badan yihiin, wayna kala fiican yihiin. marka waxaan ku boorinayaa qof kasta oo muslima Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cabsidiisa dhabta inoo sheegay inuu ka cabsado, isuna kaalmeeyaan meel kasta ay muslimiintu joogaan. cabsida Ilaahay dardaarankeedu waa mid horeysay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwii hore iyo kuwan dambaba wuxuu u dardaarmay inay ka cabsadaan keligii Allah subxaanahu wa ta'ala. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بول.
waxaan u dardaaranay idinkiiyo kuwii idinka horreeyeyba ilaahay cabsidiisa subxaanahu watacaala. wasiyatu alawaliin waalaakhiriin weeye, iyadaana lagu liibaanayaa, fadli iyo darajana lagu gaarayaa. laakiin haddii aad istiraahday waqtibaad maanta haysataa iska waxoogaa iska nashaad, maalin aan maanta ahayn baad qoomayn doontaa waqtiga. qiimo weyn uu leeyahay waqtigu, yaynaa bilaash iskaga dhuminin. ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa aan ku dadaalna meel kasta oon joogno. ittaqi llaaha xayumaa kunt waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wakhaaliqi innaasa bikhulqin xasan buu nabigu sala allahu calayhi wasalam. meeshaad ku sugan tahayba ilaahay ka cabso, dadkana kula dhaqan dabeecad wanaagsan. ilaahay dabeecad wanaagsan iyo cilmi naafica hana siiyo. dhallinyarada iyo waqtiga hadda joogto waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahi subxaanahu watacaala inay horumar ay ka gaaraan insha allah dhinaca waxbarashada. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.